السلام عليكم برتن waa Faa'iida Channel fadlan hadii daawadaad ku cusubtay subscribe dheh soo dhawaada daawadayaal maanta waxaynu ka hadli doonaa xirfad aad u muhiim ah oo ay wanaagsan tahay inaad barato xirfadda fagaara ka hadlida amba in dadka hortooda laga hadlaa waa xirfad qof kasta u baahan yahay waxa laga yaabaa inaad aragto qof cilmi iyo aqoon haya haddana ka cabsanaya dadka hortooda soo istaago waxaanu haddaba soo qaadan doonaa dhowr qodob oo ka caawin doona inaad dadka hortooda soo istaagto kana jeediso hadal qiimo leh waxaan kaloo eegi doonaa waxyaabaha sababa inuu qofku ka cabsado inuu dadka hortooda soo istaago daawada intayna gudagelin waa maxay fagaara ka hadlidu amba public speaking-ku fagaara ka hadlidu waa habka iyo hanaanka loola hadlo dadka si anshax leh ama xaalad la soo qaabeeyay oo lagu talagalay bulshada in lagu wacyi-geliyo ama lagu wargeliyo waa maxay cabsida hadalku maxaa sababa cabsida hadalku waa inuu qofku ka cabsado inuu dadka hortooda soo istaago guud ahaanba waxa jira dhowr arrimood oo sababa ay kaga tahay kalsooni darradu kalsoonidu waa shayga koobaad amba waxa koobaad ee bulshada horteeda la imanayso waxaana kalsooni darrada sababaya inuu qofku iska dhaadhiciyay afkaar khaldan taasi oo ah ma awoodaysid iyo ma qaban karaysid iyo dadka kula yaabaya iska daa waxa arrintan kalsooni darrada u dawaa ah oo munaasib inuu qofku ogaado dhammaan wixii uu ka cabsanayo qodobka labaad indhaha dadka waxa sababa cabsida ugu badan indhaha dadka waxa laga yaabaa markaad goobtaad ka qodbadaynayso amba ka hadlayso soo taagto inay bulshooyinku qaarba si kuu soo eegi doonaan qaarba si kuu soo dhaweynayaan taasina waxay kugu dhalinaysaa dareen gooniya qodobka saddexaad dhacdooyin xunxun oo qofka soo maray waxa laga yaabaa haddii ay jiraan dhacdooyin xunxun oo qofka soo maray ina taasina dhib ay ku noqoto oo uu ka cabsado inuu dadka hortooda soo istaago qodobka afraad labiska waxyaabo qofku ka cabsida ku abuuraya waxa ka mid ah labiska wuxuu soranayaa qofku armay dadku la yaaban yihiin waxaana xidhan tahay arrintan wuxuu kaga hortegi karaa isagoo qaata labiska uu ku kalsoon yahay qodobka shanaad inaanu qofku garanayn waxaanu ka hadlayaba tan waxay qofku ku abuuraysaa cabsi saayida maxaa yeelay waxaanu garanayn waxaanu ka hadlayo amba wuxuu ka cabsanayaa isleeyahay waxa jira dad kaaga aqoon badan oo goobta kula sugan taana wuxuu kaga badbaadi karaa isagoo wuxuu ka hadlayo xoogga saara kana hadla intii aqoontiisa ah ee isagu ka garanayo arrinka daawada haddaan intaa kaga nimaadno waxyaabaha sababa cabsida hadalka waxaanu eegi doonaa waxyaabaha lagu garto iyo waxyaabaha lagaga hortago cabsida hadalka waxyaabaha cabsida hadalka lagu garto waxaa ka mid ah inuu qofku dhidido taasina waxay sababaysaa in lagu garto qofkani inuu ka cabsanayo stage-kan uu taagan yahay waxaa kale qofka lagu gartaa wadna garaac xooggan neeftoo ku yaraata iyo hagago badan amba hadalkoo isku taagtaaga dawakhaad matag dhammaantoodba waa sifooyinka lagu garto cabsida hadalka waxaana dhammaantood sababayaan inuu qofku akhritaanka ka cararo stage-ka waxyaabaha lagaga hortago amba lagula tacaalana waxaa ka mid ah inaad ogaato waxaad ka cabsato amba isleeda dhibbay kugu hayaan waxay kaa caawinaysaa inaad dhammaan ka fogaato waxyaabaha isleeda waad ka cabsanaysaa inaad si fiican u diyaargarowdo tanna waxay kaa caawinaysaa inaanad ka warwarin waxyaabo kaloo kugu yimaada markaad bulshada hor tagtana si fiican ayaad wax ugu tabin doontaa ka hadal keliya waxaad taqaano haddii aad tidhaahdo mawduucaad ka hadlayso waa lagaaga cilmi badan yahay taasi waxay saameyn ku keeni doontaa adiga iyo dadka ku dhegaysanayaba ugu dambayntii indhaha dadka si fiican u eeg tani waxay kaa caawin doontaa inaad ogaato qofka sida sanka ula socda iyo qofka kaa sii jeedaba daawade dhammaan qodobada aan soo xusnay waa qodobo haddii aad ku dhaqaaqdo waxyaabo badan kaa bedeli doonaa